yahuudda ayaa maanta weerar waxay ku ekeysisay caasimada dalka Qatar magaalada Doha waxaana weerarkaasi loo isticmaalay diyaaradaha dagaalka ee dawladda yahuuddu ay leedahay sida wararku ay sheegayaan hadaba xogtaas ayaa idinka daba geenaya waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saartaan YouTube channel keena Cabdullaahi Qorshe iyo Qorshe Media oo labaduba subscribe inoo saartaan wax yar ka hor waxa dawladda yahuudda ay weerar ku qaaday magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar gaar ahaan waxa la sheegay weerarkaasi ay loo adeegsaday diyaarado dagaal isla markaana lala beegsaday ururka Hamas saraakiil ka tirsan madaxdooda oo magaalada Doha shir ku lahaa isla markaana ka arrinsanayay waxa ay ka yeelayaan dalabka uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo codsaday in xabad joojinta shuruudo cusub lagu soo kordhiyo waxaana hogaamiyaasha Hamas la sheegay in arintaasi ay ka arrinsanayeen isla markaana qorshoodu uu ahaa heshiiskaasi inay qaadanayaan inay ka tashtaan balse yahuudda ayaa weerar ku ekeysisay goobtii ay ku shirayeen oo la sheegay inay ahayd goob dad deegaan ah ay degan yihiin isla markaana aanan ahayn goob dadka ka xaniban oo maaragta qarsoodi ah wararku waxay sheegayaan in ilaa hadda uusan jirin khasaare sax ah oo naf iyo maal intaba isugu jira laakiin in weerarkaasi ujeedkiisu ahaa in halkaasi lagu dilo saraakiisha Hamas ama hogaamiyaasha Hamas ee halkaasi kulanka ku leh yahuudda way qiratay in weerarkaasi ay qaadeen ciidamadeeda waxaana sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka militariga yahuudda ay sheegeen in ujeedkoodu ahaa inay soo afjaraan saraakiisha Hamas wasiirka maaliyadda ee dalka Israel ninka aadka u fog ama midigta fog ka soo jeeda oo aadka ugu fogaaday naceebka dadka Falastiiniyiinta ayaa war u qoraal oo soo saaray gordhaweed waxa uu sheegay wararkaasi kadib inuu aad ugu faraxsan yahay in weerarkaasi ay qaadaan ciidamada yahuudda isla markaana uu ahaa go'aankii ugu fiicnaa oo ay qaateen dawladda yahuudda waxaana uu sheegay in ay ahayd in la dilo saraakiisha iyo hogaamiyaasha Hamas ee halkaasi kulanka ku leh hadaba falanqeyn arintaasi ku saabsan ayaan guda gali doonaa waxa studio ay ugu sugan iminka saaxiibkay wariye sare Cabdiraxmaan Al-Ruuxi oo aad ula socday arimahaasi soo dhaw Cabdiraxmaan saa la socotidba maanta ciidamada yahuudda waxay weerareen magaalada Doha ee dalka Qatar oo dabcan aad loo rumaysan yahay inuu yahay dawladda kaliya ee Hamas ay ku taagantahay isla markaana ku bixisa dhaqaalaha iyo sidoo kale hoysiinta hogaamiyaasha ururka Hamas weerarkaas ilaa hadda maxaan ka ognahay qorshe aad u maasan tahay weerarkan horta waa war degdeg oo goor dhow soo dhacay diyaaradaha Israa'iil ayaa waxay weerareen caasimada Doha ee Qatar dhismo ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Hamas gaar ahaan garabka siyaasadda waxay meesha u tageen wada hadal oo soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wada hadalkaas uu lagu joojinayo lagu gaaray xabad joojin u dhaxaysa yahuudda iyo Falastiiniyiinta laakiin si lama filaana waxa laga war helay weerar degdeg ah oo lagu qaaday dhismooyinkii ay deganaayeen wafdiga Hamas watahay saraakiisha goobta ku shireysay ma deegaan caadi ah ay ku shirayeen mase waxay ahaayeen goob aad loo ilaalinay amaankeeda oo aad loo sugay oo ka baxsan meelaha dadka deegaanka ay degan yihiin ilaa hadda jasiira waxay qoraysaa goob caadi oo la degan yahay goob si weyn macnaa ciidan uga hareeraysan ma ahayn mana la filaynin in yahuuddu marnaba ay ku dhiiranayso inay Qatar weerarto gaar ahaan Doha sababta ta wax xiriirkooda ma ahayn mid hadda xun hadana ma jirin warar hor u dhaca oo sheegay in labada dal dhexdooda ay wax ka dhici karaan sidaas daraadeed marnaba Qatar kuma aysan fikirin iyo wafdiga Hamas ba inay lagu weerari doono goobtaas marka xataa Qatar way la yaabtay wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa gordhow hadlay oo cambaariyay weerarka wuxuuna sheegay inay wax aan qaadan karin inay tahay isla markaas ay safilaynin daqiiqada ka hor sidoo kale waxa hadlay nin Hamas oo hadlay ayaa wuxuu yiri wafdiga aan meesha ku tagnay waan bad qabnaa waxna ma gaarin laakiin dawladda Qatar waxay sheegtay in baaritaan ay wado isla markaasna war ay soo saari doonto ilaa hadda inta warka la hayo wax khasaare ah oo wafdiga gaaray lama hayo laakiin daqiiqad walba wax isbedeli karaan wixii soo kordhana inaan bulshada la wadaagna ay rajaynaynaa waa tahay war degdeg oo iminka soo gaaray wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu sheegay
inuu qaadanayo mas-uuliyadda buuxda oo weerarka maanta ay ku qaadeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar isla markaana ujeedkoodu ahaa sida uu hadalka u dhigayay ururka Xamaas hogaamiyashooda oo ku tilmaamay in argagixisay yihiin inay doonayeen inay dilaan balse ujeedkoodu ahaa in raggaasi ay ka taqalusaan dabcan marka loo eego siyaasad ahaan in weer intaasi la eg ay Israel ku qaado dal Carabeed oo gaar ahaan dal aad maaragta dhaxdhaxaad uga ahaa ama dhaxdhaxaadin ka waday Xamaas iyo Israel maxaa loo akhrisan karaa استاذ قرشه sida alla socotaba yahuud waayahan dambe waxay ku socotaa wax leeyahay xero taraar wax xero celsho male adana green light amba daw al-aqdar leerka cagaaran ayaa waxa uu shidaya oo go'ahayd leh nimka leeyahay madaxweynaha yimid ee Mareykanka Donald Trump Mareykanku guud ahaan mar walba wuxuu garab taagan yahay Israel qaladii sax ay gashaba laakiin hadda qaabka ay ku socoto Israel waa mid dunida dhan ay la yaaban tahay waad ogeed weerarkii kadiska ee ku qaaday Iran iyo qasaari oo geystay iyo maalmiin faraha badna oo socday haddana tiyo kale waa la yaabaya maanta inay Qatar oo dal dhexdhexaadi caalami ah Qatar waxa lagu yaqaan xataa Latin America dalal isku ay dhexdhexaysa caalamka dhan wadamo badan oo isqabtay ay dhexdhexaysa waana wadan ku fiican xagga dhexdhexaadinta oo lagu yaqaan oo wadamada qaar oo kale sas ayaa laga qabaa waa dad barbalem abuur ay waxa lagu yaqaan inay wax xaliyaan marka marnaba lama filaynin in weerarkan uu dhaco laakiin Israel wax walba ayaa laga filanayaa sida hadda wax ku socdaan haday ku socdaan waxa laga yaabaa in dunida galiso dagaal kale oo aan la filayn oo naqa kara dagaalka saddexaad ama dagaal weyn oo asagana dhibac qasaaro badan geystay war sidoo kale ka soo baxay madaxtooyada dawladda Qatar waxa lagu sheegay in ay aad uga xuntahay dawladda Qatar weerarkaasi lagu qaaday dalkeeda isla markaana uu yahay in la jabiyay shuruucda caalamiga ah ee u degsaneed dagaalka isla markaana sidoo kale tan gobolka ay aad u jabiyeen dawladda Yahuuda aadna ay ugu xun yihiin weerarkaasi sidoo kale marka loo fiiriyo marka maxaa hadda laga filan karaa oo jawaabaha dawladda Qatar marka laga soo tagin cambaareyntaas ay bixiso filashada kale dawladda Qatar ay bixin karto maxay tahay horta dawladda Qatar waa dawlad galaangal badan leh waxay leedahay taageerayaal fara badan ay leedahay dad badan oo xagga siyaasadda ay isku fikriyiin jirto marka military ahaan marna uma babac dhigi karto Israel oo Mareykanka dabada kula jirta laakiin haddana waa cadaas ay saari kartaa iyo qadariyiintu waxa lagu yaqaan waa dad firfircoon waa dad Israel culays ku saari kara inaysan mar labaad ay ku dhiiran laakiin sida kale dhanka military ahaan marka la yiraahdo marnaba laga ma yaab in weerar rogaal celis ay qaado sida la filayo Qatar sababtoo ah isuma dhigmaan labada dal oo Yahuud waa dalka bariga dhexe hadda Israel dal Soomaali uma aqoonsanay dalka Islaamka laakiin waa maamulka ugu awood badan hadda bariga dhaxal dhigi kara Yahuud oo haddana ku nuclear ka haysta laakiin siyaasad ahaan ay ciriiri gari kartaa janaalada diblomaasiyadda ay oo waxay u marsi kartaa dhambaalo fara badan fagaarayaasha caalamiga ay kula dagaalami kartaa sida qaramada midoobay iyo fagaarayaal fara badan ay kula dagaalami kartaa واتاي طبعا وحي ورر ku soo kordha dib ayaad idin kala soo socodsiin doona hadii Allah uu wada leedmo waxa sajira ururo iyo sidoo kale dawladdu cambaaray weerarkan ay maanta dawladda Yahuudu ay ku qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa kamid ah ururka lagu magacaabo PLO oo loo soo gaabiyo Palestinian Liberation Organization oo maaragtay aad u cambaaray weerarkaas isla markaana ku tilmaamay mid lagu sii fogeynayo rabitaanka dadka reer Palestine isla markaana uu yahay mid Yahuudu ay ku tala gashay waxa sidoo kale kamid ahaa dadka cambaaray weerarkani dawladda Iran oo la wada og yahay halka ay ka taagan tahay marka ay timaado arrimaha noocan oo kala ah oo aad uga soo horjeeda dawladda Yahuuda isla markaana dhawaan ay isqabteen Yahuuda iyo sidoo kale Iran afayeen u hadlay waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran ay aad uga xun tahay weerarka lagu qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar isla markaana uu yahay mid lagu jabiyay shuruucda caalamiga ah ee u degsanaa dunida waxa sidoo kale sheegeen arintan ay tahay mid qatar ah oo dambi caalami oo la galay ay ka dhigan tahay dabcan marka fiirisid dawladda hadda ay ka hadlayo kala arimahan ma qiyaasan kartaa in ay sii fogeynayso wada hadaladii ama heshiiskii laga filayay in Xamaas ay xabad joojin ku gaarto والله ان labada dhinac bay noqon kartaa sad qorshe sababta ay Yahuud mar walba dagaal ayaa ka go'an
laakiin garabkan kale Falastiiniyiinta ayaguna shuruudo ayay wataan laakiin mar walba in xal la gaaro way rabaan oo dagaalku ku daba dheeraaday haddana ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ayaa culays waxa saaran ah in dagaalkan daba dheeraaday guush oo rabaan oo iska gaarin sidaas daraadeed asiga waxa ka go'an inuu shuruucda caalamka dhan jebiyo si uu soo afjaro Xamaasna waa dad aad u caqli badan oo aad fikir dheer oo muddo dagaal ku jira oo yaqaan dagaalkan ay qaababka Yuhuudda loo dagaalamo laakiin wuxuu isku dayayaa inuu caalamka ku ugaarsado sidii Iiraan oo kale uu hore ugu ugaarsaday sidoo kale wuxuu isku dayayaa meel aan la filayn inuu sidaan oo kale ugu duqeeyo laakiin arintan waxay noqon kartaa Falastiiniintu mar walba waxay isku dayayaan in xal la gaaro way rabaan oo caalamka dhama cadaadis ku saaray dawladda Carabta cadaadis ku saaray dunida muslimka cadaadis ku saaray waayo reer galbeedka ayaa dhabarka ka taagan Israa'iil marka qof kasto Falastiin u damqanayso waxay isku dayaysaa in xal la gaaro oo wax dhibaatadan Falastiiniinta ma alla kale ku socodsi loo joojiyo arinta marka Falastiiniintu mar walba wadaal oo diyaar u yihiin laakiin Yuhuudda mar walba arintii caqabadaha hor dhigayso oo dhibaato sameynayso laakiin waa la arki doonaa sida wax isu bedelaan saacadaha soo socota insha Allah ku soo noqon doona Suudiya wata aad u mahadsanti dabcan weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli aroortii hore saakay war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Yuhuudda loogu digay dadka Falastiiniyiinta ah in ay ka baxaan aaga ay degan yihiin ee Gaza isla markaana digniintii ugu dambeysay oo diray taasoo uu sheegay inay qaadi doonaan weeraro ciri dhul ah waxaana Yuhuudda xoojisay weerarada cirka ah oo ay ku burburinayso magaalada Gaza isla markaana waxa lagu soo waramayaa in dhul aad u ballaaran ay hadda burburiyeen ku dhawaad 200 oo ah guryaha dhaadheer ah ee dabaqyada loo yaqaano ay hadda dhulka dhigeen isla markaana dhulka ay ku dareen tirada dhimashada ah ay arintaasi aad u sii kordhisay waxaana hadda la sheegayaa inay gaartay 64605 ruux inay ku dhinteen tan iyo markii ay bilowdeen weeraradan October 2023 waxaana sidoo kale jira in ay aad u sii xoojinayso taasi barakaca lagu geysanayo dadka reer Falastiin la doonayo in guryahooda sida qasabka ah looga saaro ama deegaankooda sida qasabka ah looga barakiciyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ay aad u sii kordhiyaan dadka sidoo kale baahida ugu dhimanaya ama gaajada ugu dhimanaya dhulka Gaza iyo sidoo kale oonka iyo haraadka ugu geeriyoonaya agaasi caruur iyo haween ayaana u badan dadka tirada ah ee la soo warinayo in halkaasi ugu geeriyoodeen guud ahaan aad ayaad u mahadsantihiin waxaan mar kale idin ka codsanaynaa subscribe noo saartaan YouTube channelkeena Cabdullaahi Qorshe iyo sidoo kale Qorshe Media mar kale waan idinkaga mahadcelinaynaa daawashadiina iyo la socoshada sheekooyinka aan halkaan idinkugu soo gudbin doono